dhammaantiin ba aad bayaan islaamina waa wariyay Jamaal iyo mar kale iyo barnaamij kamid ah barnaamijyadii aanu idinku soo jeedin taxanaha dalka Mareykanka ee kaga hadlayay dalka Soomaaliland iyo xaaladaha marba ku soo kordha maanta waxaan ka hadlaynaa dalka xaaladaha ku jira ee abaaraha iyo kale ee doorashada iyada hadda diyaar garowga lagu jiro iyo arrimo ku saabsan dhaqanka Soomaaliland iyo dhaqanka Soomaaliyeedba waxaan hore loogu aqoon oo ku soo biiray dhaqankii Soomaalida ugu horeyn haddaan ka hadlo abaaraha maanta wali sidii ay dalku uga taagan yihiin dadku sidii ay u tabaalaysan yihiin xoolo horta ha sheegaysan ognahay waa dhamaadeen meel roob ka day waa jiraan laakiin roobka maanta ay maaha mid la oranayo duruufiye dhibaatadii baa laga baxay xitaa hadduu mahiigaan meel kasta ka da'o waa kii dadka leen jiray xoolaha inta harteen leen jiray waxa weeyaan wuxuu u baahan yahay gabaad helaan iyo waliba cunto iyo hooy inay helaan bay u baahan yahay ay ka gabadaan iyaga xoolaha yar oo haray hadayba hareen wax inay ka galaan abaaraha gadaal baynu ka hadli doonaa ama mar dambe ka hadlaynaa waxaa kaloo igu jirta doorasho iyadoo la rabo in dalka laga qabto oo waqti hadda la rabo in la qabto bisha 13 runtii ah mid aad iyo aad u adag in la qabto xilliga sababtoo ah wali dadku dhibaatadii ama tabaaladii abaaruhu inaan ka dhamaanin wasaan sheegnay dhulku geed gaaban mid dheeriba dhamaaday maanta hadii roob da'ana xilligaas aan ahayn xilli dalku barwaaqo wada noqonayo sidoo kale dadkii aan meeshoodii lagu soo celin karin wali cidda codeynaysa aan la garanayn laakiin xisbiga kulmiye oo hogaamiyaha ka yahay Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa iska dhaadhiciyay inuu soo guuleysanayo isagoo ku xisaabtamay magaalooyinka waaweyn saacadii magaalooyinka ugu yahay u leeyahay waan ku guuleysanaya inay dad badan degan yihiin ayaan ogeyn arrimahaas oo waynu geli doonaa laakiin marka hore waxaan rabaa inaan ka hadlo sheekadan soo noqonaysa xulafada ama sheegaanta ka dhaxaysa beelaha galbeedka Hargeysa iyo bariga Burco kaasoo ay markii ugu horeysay dadku maqleen ka dhawaaqay wasiirka maaliyadda Soomaaliland Samsam Cabdi iyadoo sheegtay inay xulafadaasi muddo dheer soo jirtay in silaayana ay iyagu cod ka siiyeen haddana la rabo inay beelaha madaxweyne ku soo jeeda iyaguna cod ka siiyaan beesheeda haddaba arrinkaas waa arrin aan jirin hadduu se jiray waa mid fashilmay kadib markii cay iyo aflagaadooyin badan ay ka yimaadeen beeshaas iyo odayaashooda iyo ragga sheeganaya waxa garadkooda sida aan sheegnay xulafadani ma ahayn mid soo jirtay weligeedba waxaa daliil cad u ah sanadkii 1990kii doorashadii ugu dambeysay la doortay gudoomiyihii ugu dambeeyay mudane ilaahu naxariistay Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur gudoomiyaha asam loo doortay 195 qof doorteen beesha bariga Burco iyo Silaaya wax cod ka ugu rideen Cabdiraxmaan Tuur oo ka soo jeeda galbeedka Burco aan ka soo jeedin galbeedka Hargeysa saacadii ka soo jeeda galbeedka Burco taasina waxa ku tusay inay jirin xulafadaas ama sheeganta ay sheegayso gabadhaas takale doorashaday hadda dhacday ee lagu doortay madaxweynaha waxay ahayd doorasho ummadda oo dhan ay maartay u sinayd oo rajo laga wada qabay beelo badan ay codkan ay bixiyeen oo siiyeen labadan beeloodna way ku jireen xoog weyn oo ku lahaayeen laakiin waxa dhacday in ay noqotay doorashadaasi mid lagu khasaaray oo food khasaaray maqal jireen food khasaaray noqday kadib markii uu noqday mid kaliya ku kooban galbeedka Hargeysa beelahaas galbeedka Hargeysa waa dad sharaf iyo ciise mudan cid wax u sheegaysay cid wax ka dhimaysa midna ma jirto laakiin wixii khaladaadka jira siyaasiyiin waa laga hadlayaa dhaqanba inta marka laga tago beesha galbeedka Hargeysa ama ku soo jeedo gudoomiyaha Muuse Biixi
waxay bilowday olole iyo campaign ay u galayso sidii ay cod ugu raadin lahayd Muuse Biixi Cabdi iyadoo la kulmaysa beelaha kale ee dhigeeda ah ee dalka dega kuwii u dambeeyay waxay ahaayeen gobolka Awdal iyagoo maalmihii u dambeysay la arkayay oo galaabaha ay deegaanada iyo xaafadaha ay degan yihiin beelahaasi ee magaalada Booramo badan laftii u dambeysay ee la kulmayna ahayd lafta ka soo jeeda madaxweyne ku-xigeenka Saylici oo runtii sida loo ogsoon yahay iyadoo hore loogu codeysay kulmiye imikana la filayay inay u codeyn doonto laakiin beelaha kale ee Awdal ay shaki weyn ku jiro qaarna la hubo inaan u codeynaynin laakiin dhaqdhaqaaqan uu sameeyey xisbigani ama aan yiraahdo odayaashan ay sameeyeen waa mid ku cusub Somaliland oo lama arkin beel u ololeysa ninka murashaxa ka soo jeeda beela kale u tagta dhaqanka Soomaaliga lagu maaray laakiin anu shakhsiyan dib u maarko waayo waa wax kororsoon bay rabaan iyo inay dalka maamulaha gacanta ku dhigaan dhibaato ma laha laakiin bisharda waa inay dadka kale ku caawiyaan marka ay sameeyaan iyaguna ay beesha uu ka soo jeedo murashaxooda ay u tagaan beelaha kale ay wax weydiistaan oo ay oran qabyaalad baa wadaan hadii iyagu albaabka ka furaan saan sheegaan waa dib u arkin hadda waxaan u soo jeedinayaa qabaa'ilka kale qabiilada kale ee uga soo jeedo gudoomiyaha xisbiga wadani waa Cabdiraxmaan Cirre inay habronis inay sameeyaan same approach ay sameeyaan dadka u tagaan qabaa'ilka kale u tagaan especially u tagaan beesha bariga Burco ay wada degaan ay wada dhashaan ay wax badan ay ka wada dhaxayaan uguna qanciyaan inay u codeeyaan uguna qanciyaan inay uga fiicnaanayaan ballanqaadyana u sameeyaan xukuumadda maanta jirtana ay uga wacd roonaan oo ballanka la galaan noqonay mid aan ka baxayn saas daraaddeed ay uga codeeyaan Cabdiraxmaan Cirre shakhsiyan waxaan soo jeedinayaa beesha bariga Burco inay codkii hore way ku khasaareen inay baaldi daloolo biyo ku shubin ay bedelaan oo tijaabiyaan beeshan kale ceeb male meesha waa qabaa'il waa 4 years 4 sano Cabdiraxmaan Cirre lagu talagalayo bal wuxuu qabtay wuxuu eegay berito haddii uu ka soo bixi waayo in dabatana laga bedelo cid kale loo bedelo ama iyagu murashax samaysan ama mid kale oo codeeyaan waa 4 years taasina waxay keenaysaa in isbedel badan yimaado in dalka marba meeshii la doonayay dadku ay xorriyadda ku tagaan oo ay u codeeyaan dadkuna ay xor noqdaan codkooda oo aanay dhicin sidan ay sheegayaan beelaha galbeedka Hargeysa in sanduullada cid ku tahay codka inay khasab lagu siiso tahay haddii lagu fashilmay wixii ay maaragtay lagu ballamay waxa weeyaan waa in maaragtay laga gidiga rabtaa waxaan kaloo sheegayaa oo ku sabooraya in aan Muuse Biixi maanta aanu haynin u qalma in la doorto waa ninkaa ka hadlila dadka magaciisa sheeganaya ee aflagaadoonaya in ay ummadda ka dhex baxaan oo aflagaadyada ka daayaan isaga ay wax u dhimayaan intaan cid kale wax u dhimin waxaa kale oo number 2 Muuse Biixi aan ugu qalbin madaxweyne noqdo waa nin askari ah waa nin laga baqayo inuu noqdo siyaad barra kale say dad badan aaminsan yihiin oo dhibaatooyin badan keeno isagoo oo shalay hadduu yidhi aniga wax dili karaan duco qaadan maayo inuu maanta uu haysto jaaniska haddii uu helo madaxtinimada number 2 maanta oo dadkii bakhtiyeen oo dhimanayaan hadduu caawin waayo waxba siin waayo oo dhex tegi waaye hal mar uu tooyay calalgeeyay uu dhiira mooyaane بريتو محل سوية إنه وقفت ضدك كلمة أيه حتى وحوينا ما قسم إنه وحسيه لكن هو حتى أهيليو لو تصدق ولا قيب صدق أيه and number 3 and مسبيحي وحليه هاي معارضة أو ترى بدن وتر كديسة عدو كواه بوليه هاي تاس أو سي maartay dhibaato ku noqon doonta hadii uu meesha qabsado in xukunka sii wato ka madaxweynahan maadaama muddo ay tahay
kasoo horjeeda majority-geedu ama aanay raacsan ama dad badan jiraan oo aan ogolaynin sababo badan oo maaragtay la sheegayo oo looga soo horjeedo. Nambarka shanaad khibrad ma leh hogaamineed oo nin hogaamiye soo noqday maaha. xisbigan kulmiye xisbi hogaamiye maaha, xafiiska ayuu leeyahay iyo waxaa iska gudmayaan hoggaan dhaba oo deesanam oo kale ama Somaliland oo kale ama umuu yeelan. taliyaha markuu askariga ahaana wuxuu ahaa askari pilot unbuu ahaa, muu haynin maaragtay dee ciidamo taliya ma ahayn, taliya weyne mu ahayn. marka khibrad ma leh diblomaasiyanimo ma leh, khibrad maamulna ma leh. shanaad wuxuu leeyahay taariikho hore oo xun oo madow ayuu leeyahay, sidii dagaalkii sokeeye ee dhacay iyo hadaladii laga hayay ee adkaa ee anigoo wax dili kara duco qaadan maayo oo runtii dadka dareenkooda ku qoran. shalay haddii uu lahaa anigoo wax dili kara duco qaadan maayo an waxaan aaminsanay iska hadlayay beelo markaas sinaayeen awood ahaan isku dhowaa. laakiin maanta oo dalku dhisan yahay ciidamada u dhisan yahay dhowlba hadduu qabsado inaan u aabayeelin qofkii ka hor yimaada. waxyaabaha kale la yaab kale waxaa ka mid ah madaxadegiisa ka mid ah Muuse Biixi jawaabtii uu ka bixiyay haddaad daawatid su-aashii uu tiifiyada Soomaaliya mid ka mid weydiiyey ahayd guddida sare Somaliland beesha bariga Burco hadaladii maanta ay soo saareen shirkooda jiraad soo saareen ahaa muxuu ahaa Muuse Biixi waanu ka niyad jabnay kadib markii uu dadkii abaaro hayeen uu doorkiisa ka qaadan waayey una soo jooqi waayey una iman waayey waanu ka tashanaa talaan dib uga noqonana uu hadalkii ka dhigay hadal dad gaar la hadlayna uu yidhi waa individuals waa dad qof weeyaan waxay rabaan ha sameeyaan uu yidhi dhib male waan ku ixtiraamaya laakiin waa dhowr qof uu yidhi. isla markaana uu yidhi xisbigu ballaaran yahay oo ummado badan baa ku jira macnaheedu uu tahay beeshaas waan ka maarmaya. waxyaabahaas waxay keentaa dictatornimo weeyaan. markaan ka baxo sababahaas iyo qaar badan oo Muuse Biixi aanu ku noqon karayn guddoomiye, dalku dhibaatooyin badan oo abaarahaas ka yihiin bay ka mid tahay. dowladdu waxay ku fashilantay inay xaalad degdega ku dhawaaqdo taasoo dastuurka u furayo khasnada dalka u furayo gobolada baahidu hayso ciidamada militariga iyo kuwa kaleba inay u adeegaan khasab tahay marka degdeg lagu dhawaaqo. yacni waxaas oo dhan lala yaabay ilaa maanta dadka saa u basbilo baabay waxa lagu dhawaaqi waayey sidii loo sameynayay xukuumadda lagu dhawaaqay degdega galbeedka markeeda abaaru ka dhaceen halkan looga dhawaaqi waayey baa la isweydiinaya maanta cod loo weydiisanay dadka saa loo ilaaway. waxaa kaloo ayaan daraa in madaxweyne maanta uu tegey inuu shaaricii batroolka iyo macdanta waa soo furay iyadoo dadku baahan yihiin dhibaataysan yihiin xagga kalena aan dadkii la hadal oo aan laga dhaadhicin in meesha macdan laga baaro iyo inay iyaga khayr u tahay. sidoo kale ay dadku tirsanayeen in cadaalad darri jirto aan shaqadii wax laga siin. intaa waxaa kuu sii dheer inuu fanaaniin sii kaxaystay oo magaalada Burco leedo hodheelka uga caansan degeen oo looga heesayey. shirkaas waxay soo xasishay shirka dhowr isteetankii markii dowladdii Siyaad Barre iyo tii migista heshiiyeen ciidamo saraakiil Ethiopian ay yimaadeen Hargeysa. dabeedna maanta Burco loo soo kaxeeyey dhulka daalo la dejiyey weyn. dabeedna magaalada Burco walba 5 galmood la xidhi jiray la yidhi 3 ma soo bixi kartaan. fanaaniintii la socday waxaa ka mid ah Khardaar Cige, waxaa ka mid ahaa Axmed Cali Cigaal. group noocaas aan ka xasuustaa oo ka heesayey daaqadaha ayaa laga dhegeysanayay muusiga ka soo baxaya ma soo bixi kartaan ayaa la yidhi. waxay ka duwaneen meesha xabashuun baa maraynin siilaayi maanta dhaweyto dadkii may joogin. sidoo kale waa laga heesayey yacni waa wax lala yaabo duruuf adag oo lagu jiray halkana duruuf adag baa lagu jiray oo caad loola yaabay ummadduna aad iyo aad iyo aad ayay maanta ula yaabtay madaxweynaha. waxaa la islahaa gargaar buu keenaya, waxaa la islahaa waxyaa qabad kaluu keenaya,
waxaan islahaa adis dadka meesha deegaanka ula hadlaya oo ka dhaadhicinaya si dadku ay maaragtay u wada shaqayn lahaayeen khayraadka laga soo saaraya meesha ay maaragtay ugala shaqayn lahaayeen dowladda iyo in shaqaalo loo qoro iyaga iyo in loo sheego wixii meeshan maaragtay laga qabanayo laakiin isagoo intaa midna samayn ayuu bismillaah intuu furay meeshan cabaar looga heeso oo muusig loo tumayo heeso taasoo sharciga islaamka kasoo horjeeda dhaqankana kasoo horjeeda dadkuna u arkeen ku digasho yaa guddigani ummadii oo baktiyaysa oo baaba'aysa gobolka togdheer sool sanaag saaxil intaa u dhexayso dhan ilaahuud dhulku waa dam waa baseen marka dhibaatooyin badan baa ka jira dalka waxaa kaloo aan sheegayn muuse biixi doorashadii ama taageeradii uu siinayo inuu ahaa mid aan cadaalad ahayn oo uu ka exday nimankii kale ee la tartami lahaa sabab uga exdayna aan la garanayn ninkaasoo mucaarad weliba isaga ku ahaa oo xitaa xukuumaddiisa inqilaab isku dayey kacdoonkii shaanida hargeysa raggii la tartamayey ee hadday yihiin xirsi iyo hadday gruub kale yihiin maxamed biixi yunis iyo kuwii kale inkastoo aan aaminsanayn oo dad ay aaminsan yihiin aan ka mid ahay in xirsi loo soo diray laba taagga waxaa la yidhaha markabka yar ee maraakiibta badda dhexdaa intay istaagaan maraakiibta wayma soo geli karaan keligood soo jiida digta kusoo xidha marka dima ka saara ayaa laha taag xirsi maadaama nin culus ahaayo adag oo aan la dhaqaaqajin karaynin laba taag baa loo soo diray oo kale ahaa samaale wasiir samaale iyo muxuu ahaa iyo maxamed biixi yunis wasiirka arrimaha dibadda ahaa ayaa loo soo diray si ay uga jiidaan xisbiga gudihiisa iyo madaxtooyada waana u fududaatay nasiib darra inay maarata ka jiidaan meesha isagu wuxuu haystay inay la shaqaynayaan baadida ninbaa kula daydaya daalaka badan aan si doonin inaad shudaay nabadka taa waxaa ku caddaynaysa iminka labada nin midna lama hayo meel jaanic ay dhigaan muxuu ahaa ninka la yidhaahdo aan idhaahdo samaalna waa soo noqday isagu wadanta kulmii halkiis ka miisayaaba oo wasiirnimadiisa xisnada halkiisa u taalla waa haddii dee uu maaragtay muuse biixi ku guulaystay cid dadku aanay aaminsanayn inuu heli doono laakiin isaga shaydaan ku yidhi waad guulaysanaysaa haddaba halkan waxaan kusoo jeedinayaa dadka gobolka togdheer in iyagu isku tashadaan gobollada bari oo dhan isku tashadaan sooliya sanaag iyo cayn togdheer saaxil in isku tashadaan hargeysa lafteeda galbeedka inay taageeraan guddoomiyaha muxuu ahaa baarlamanka oo runtii dadku ay ka dalbanayaan anna ka midna aynu ka digo baarlamanka oo u madax banaanaado madaxweynenimada inuu ordo maadaama imika ay dabish koortaad la yidhi waa la qabanayaaba waanu kusii dheganaan iskaga digo isagu dhaqsaa badan isagu madax banaanaada in la taageero ninkaas in maxay ahaydtay odayaashiisuna beeshiis ka jeedana ay dhaqdhaqaaq sameeyaan oo ay u tagaan qabaa'ilka kale oo ay codka uga soo dhammeeyaan oo ay maaragtay isku xidhaan oo aanay keligii hawsha ku daynin dee albaabba idin fureen galbeedka hargeysa waa caadi in laga faa'iidaysto oo haddii maanta bilaabi lahayd waxa la qabiil bay wadaan baa loo laakiin haddii laydin furay boobkii dee ka faa'iidaysta oo idinkuna qabaa'il kale u taga oo ka soo dhammaysta ayaan idin odhan lahaa halkaana fursad baa idiin taalla fursad aad ka faa'iidaystaan ayaad u baahan hadday tihiin beesha galbeedka burco kana baxdaan muxuu ahaa niyad xumadii iyo dhibaatooyinkii dadka dhexooli jira hore waayo dad kuma jiri karaan muran iyo ishaysasho sheekadan ah galbeedka iyo bariga burcaa cadowana ee dadka qaar ka faa'iidaysanayaan inaad beenisaan ee loo baahan inaad beenisaan baahantii hadalkii waxaan kusoo gabagabeynayaa madaxweynaha waxaan ka codsanayaa in uu sii daayo cafiyo muxuu ahaa cabdimaalik muuse coldan u khaldamay runta ilahay baa jeclo u khaldamay dalkiisii oo loo soo halgamay oo loo soo baabay oo loo dhintay si iisiya uga ololeeyey
عدو قصر راعي وخلط وين أساتي وأنا ليرة وأني هناك بدن سمي وأنا واحد بدن سمي وأني قلبي يوسف في عيني لكن لقى عقل بديه ويا ساسوار كانوا مركا إن السوداء إن الله الله ويا إن شاء الله تطبض نوع عد سنة على سيدايو يسقنا هالليلة هذا تيج إيزي هلا وده مركا أنت أصلا كسوق بجميع ما أنت إنه كل مدن البرنامج كانوا كلا واحد كيتك الناس وأنا قاوري السعيد جمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.